وقار كميدا مدحدا دلال أفريكان oo la kulmay hogaamiyihii golaha sare ee kacaanka Iran ee dhawaan la dilay Ayatollah Ali Khamenei. Madaxdaasi waxa ugu horeeyay Nelson Mandela, madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika. Khamenei iyo Mandela waxay ku kulmeen magaalada Tehran ee caasimadda Iran 1999. sidoo kale waxaa kamid ah Jacob Zuma oo isna Koonfur Afrika madaxweyne ka soo noqday. Waxa ay kulmeen sanadii 2016. madaxda Afrikaanka ee Ayatollah Ali Khamenei uu qaabilay waxaa kamid ah Ismaaciil Cumar Geelle oo sanadkii 2006 ay kulmeen. Geelle waa madaxweynaha aan dhicin ee dalka Djibouti. sidoo kale waxaa kamid ah madaxda Afrikaanka ee la kulmay Khamenei ninka la yiraahdo Siyaas Afwerki madaxweynaha dalka Eritrea sanadii 2008 ayay kulmeen. John Mahama oo wadanka Ghana madaxweyne ka ahaa jiray oo qaabilay wadaadku sanadii 2016. sidoo kale Maxamedu Buhari ayaa kamid ah dadka uu la kulmay sanadkii 2015. Buhari wuxuu ahaa jiray madaxweynihii hore ee wadanka Nigeria isna waa u dhintay. Robert Mugabe madaxweynihii hore ee wadanka Zimbabwe ayaa kamid ah madaxda Afrikaanka ee la kulmay Ayatollah Iran 2006 ayuu la kulmay. Muammar al-Gaddafi madaxweynihii hore ee wadanka Liibiya ayaa kamid ah madaxda Afrikaanka sidoo kale la kulmay Ayatollah 1996. Abdulaziz Bouteflika madaxweynihii hore ee wadanka Algeria ayaa isna kamid ah raggii 2003 la kulmay Ayatollah Ali Khamenei.